السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السودة وهذا ولا لهي قالي قامل والبوت شوكتان كان كذا كذا وانا سوا فاضمة فيلسن قف كذا هذا أنا وانا فاضمة فيلسنة اسكسون نقشة وناكسن ما أنت ومالين عصب يفيديو عصب سودة وهذا يعني الله ولا لهي قالي جاء ما أنت هدي إلهي إدمو حنوغش كأنها قصة داس waxay ku dhacday hooyo Soomaaliyeed hooyadii ay ku dhacday qisadaas ayaa ka sheekaysay iyada laftirkeedii ayaa ka sheekaysay waxay tiri hooyadani baadiye ayaan deganayn bay tiri anaga waqti hore ayay ahayd waxay tiri baadiye ayaan deganayn meesha aan deganahayna waxay ahayd bay tiri meel oo libaax aad ugu badan yahay meesha libaax maxaa la dhahaa kayn libaax miyaa la dhahaa magaceeda kaymaha adi meelaha libaax uu zaa'idka u joogo magac gaara ayay leeyihiin laakiin adiga dhulkaas oo kale ayay deganaayeen waxay tiri maalin maalmaha ka mid a ayaa waxay tiri soo safray aniga iyo waxay tiri xaajigeygii ayaa soo safarnay awr ayaan waxay tiri waxaan kusoo ridanay qabo waxaan kusoo raranay bay tiri qabo iyo waxay tiri kusoo raranay subag markaas waxay tiri magaaladan aad ayay nooga fogeyd sidii ayaan usoo safarnay tiri habeen ayaan soo baxnay tiri habeenkii oo dhan ayaan soconay maalintii ku xigtay ayaanu sii soconay maalintii ku xigtay marka galab gaaban markay tahay maalintii oo adiga qiyaasta ay ku sheegtay 11 galabnimo kala camal ah ayaa waxay tiri awrkii diday bal kaalay adigu awrkii qabo kii awraha kaalay qabo did qalbigees maxay u ordaa aniga waxay tiri yaabna awrkii waxay iska xajinay waa iska soconay cabaar baan soconay markan waxay tiri cabaar soconay buu markii dam xarkuuba furtay haw awrkii carar buu istaabtay marka waxay tiri markuu awrkii cararay xaajigay wuxuu yibay tiri gu'isi iyo waxay tiri intuu ii soo tuuray alaab wuxuu yibay alaabtaas soo qaad raadkanaga soo qaad anigu awrkaa soo qabanayaa haya ayaan rabtay cabaar baan soo socday waan iska soo waxay tiri raadkoodii baan iska hayay waan iska soo socday xaas laabay tiri awrka uu meel ku gaadhiyo wuu qabanayo wuu ku sugi dhinacay qorraxda u dhacaysay baan mar fiiriyay bay tisaa waaba libaax yaa waaba libaax haddana waaba libaax dad qaada libaaxaaba kala roon mid dad qaada waxaa leeyahay dhulkaa kuba caan baxay oo qofan qori wadanin dhulkaas uuna marin oo dadka xataa waxay tiri markay meesha dadka marayaan safartii group ay isla socdaan waa la isballansadaano dad kooxo badan ayaa la isu raacaa oo nimanka qoriyay qaataan koox badan ayaa la isu raacaa markay xoolaha meesha marinayaan waxay tiri waa iska soconay libaaxi markaan arkay waxay tiri geed labiyo ii dhowma waxay tiri dhakada uga baxay ilaahay uma waxay tiri icaymiyo geedkii waxay tiri waaniga waxay tiri baarkiisa tagay baarkiisa waxay tiri go-ayaasha isku xidhxidh geedkii waxay tiri haddee nafta waxay tiri libaax buu soo booday oo libaax waxay tiri haddana libaax waxaa dhahay markuu qofka uu rabo inuu ka sasiyo ficilo badan ayuu sameeyaa oo adigu uu rabaa inuu qofka meesha kasoo dhaco inuu saso qofkan uu khalkhalo waxaa la dhahay afku kala qaadaa wuu qaylinaa calooshiisu banaanka keenaa dhibaatooyin wax badan uu sameeyaa oo qofkan dhibaato ku keeni karta oo qofku intuu cabsado oo khalkhalo uu soo dhici karo marka waxay tiri anigu libaax waxay tiri maadaama dhul libaax la deganayn dee libaax waxay tiri dhaqmadiis aqoon badanaan u lahaa marka waxay tiri meeshaydii unbaan waxay tiri bismillah iska odhi waxay tiri libaaxa iska jooga wax kasta ha sameeyo habeenkii meesha ayuu noogu dhammaaday tiri maalintii ayaa bilatay maalintii waxay tiri markay dhalatay aroortii barqadii markay tahay iska tegay libaaxii ana waxay tiri ma soo degin meeshaydii aan iska saarnaa cabaar markuu maqnaa waxay tiri waa libaaxii ordayay babababa waa imaaday 6 beri waxay tiri markuu meeshii sida ii dul wareegay kolba intuu tago waxay tiri haddana soo laabanay islaha bar ilmay soo degtaa mar ay soo degtay oo arma chance ku heshaa waxay tiri anna meeshii isaga saarnaa geedkii waxay tiri dhakadiisa u joogay waxay tiri maalintii 7aad igu dul dhimaatay maalintii 7aad waxay tiri libaaxi waagi markuu bariyay wuu iska kacay meel halkaasoo kale waxay tiri jeenigiisu saa dhulka ugu xarxariiqay markuu waxay tiri cabaar dhulka saa ugu xarxariiqay afka ayuu marsaday waxay tiri libaax ugu dhaartaa annaga maadaama waxay tiri libaax aqoon badan u lahayn waa ogaayay tiri inuu libaaxu dhaarto markaan arkay tiri inuu libaaxii dhaartay aad ayaan ugu farxay waxaan weyti kolleyba hadduu libaaxii kaa dhaartay kaa teg bas iska dhaqaaqay tiri mar dambe iguma soo laabanin marka waxay tiri waa soo degay cabaar markaan waxay tiri sugay arkay bay tiri wuuba dhaarto wuu tegay libaaxa inuu soo noqonayni waa ogaayay dhahday
marka waxay tiri waa soo degay waddadii unbaa waxay tiri lugta saaray bababababa cabaar waxay tiri markaan socday ayaa waxay tiri iga hor imaaday niman badan oo geel wadaan iyagana geel safar wado oo magaalada u socda iyagana wixii hore oo dhan cabsi waxay tiri baahi ima haynin oo waxay tiri gaajo ima haynin oo oon ima haynin oo daal ima haynin oo ha ka yaabin waxaasoo dhan waxay tiri waxba kama ogeyn oo cabsida waxay tiri caag unbaaban ahaa qof waxay tiri dee caag noqday camal ayaan ahabay waxay tiri markaan dadkii arkay waaba suuxay dhag xilligii biyo ay wateen saysiiya iska jooga waxay tiri dabasheen 2 maalin bay waxay tiri meeshii ii joogeen waxay tiri waan wada baxnay magaaladii ayaan tegay magaaladii markaan tegay maxaan ugu tegay tiri dee anoo dhintay ayaan ugu tegay anooba dhintay oo waxay tiri dadkanagii loo tacsiyeeyey oo waxay tiri laygaba samray ayaan tegay tiri adiga isku dardar 7 beri geedkaas joogtay iyo 2 beri oo kale iyo adduun kale sii socday adigu 10 cisho camal unba isku noqotay haddii wixii oo dhan intay maqnayd isku daro waxay tiri aniga waxay tiri reerkanagii loo tacsiyeeyey oo carruurtaydii loo tacsiyeeyey oo waxay tiri dee laygaba samray oo dhintay ayaan tegay tiri marka waxay tiri saas ayay qisadii ku dhammaatay qisadan haddaad ka heshay like noo saar haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar haddaada ka helinna isaga kaya saar saas waxaan leeyahay dee khayr badan